السلام عليكم أصحابته ويدي السلامي إذا ملك استجوبتان وولاشي سينا جنال كعداوني سانا وسينا وفشيال شكدي لذيفة أنادي وحا أي نوم ريسي لذيفة يضو كهو ريسا قدر هال دقيقة لما ترتمياشي أي لترتميسي هالكاس أي نوم ريسي شكدو فضل فيديو غانادي آكي شي لايك ريسي نشير قري وهاجا أصحابته sheekada ayaan guda galaynaa sheekadu waxa ay qaybta labaad ka bilaabanaysaa balse nasiib darro guddigii ayaa diiday in ay u qiraan in guusha ay gaadhay kuna dooday in ay iska indhatirtay labada teendho oo ku yaalay xilliga badda cad oo aanay ku dul wareegin midkood sidii loo baahnaa waxaana abaalmarintaasi sidaa lagu siiyey tartame Faransiis ahaa Latifa Anaadi oo noqotay hal hays wargeysyada Masar ayaa ku dhaartay arrintaas ugubka ahayd waxaanay Latifa Anaadi noqotay hal hays maadaama ay noqotay haweeneydii ugu horeysay ee dalkaas ee diyaarad duulisa haweenka ayay safka hore kaga jirtaa waana taa aan aragno in horumarka Latifa Anaadi uu astaan u yahay qof kasta oo reer Masar ahi kuna dhaadanayo Latifa waxa ay sheegtay in aabaheed markii uu arrinkii ogaaday aad uga cadhooday oo aanu rumaysan xirfadeeda ilaa mar ay diyaaradda ku qaaday oo ay dul marisay ahraamta duulimaadkaas oo ay Latifa ku sheegtay in uu ahaa kii ugu fiicnaa nolosheeda Latifa waxay albaabka u furtay jiilalkii ka dambeeyay ee hablaha reer Masar oo ay ka mid yihiin Linda Mas'uud, Aziza Mahram, Ayade Takala iyo qaar kale. Dhammaadkii sanadkii 1933 ayaa gabadhii u dhaqdhaqaaqi jirtay xuquuqda haweenka ee Huda Sha'rawi waxa ay dhambaal hambalyo u dirtay Latifa waxayna ku tiri dalkaagii baad sharaftay hankaygiina kor baad u qaaday oo waxaad horumarkeena saartay taaj lagu faano Latifa waxa ay u dhooftay Switzerland oo ay degtay waxayna ka qaadatay dhalashada dalkaas halkaas ayayna deganeyd ilaa sanadkii 2002 oo ay ku dhimatay iyada oo 95 jir ah halkaas ayay ku soo dhamaatay sheekadii Latifa Anaadi. Latifa Anaadi waxa aan ka baran karnaa sheekadeeda in qof walba oo inaga mid yahay uu samayn karo wax walba oo maankiisa ka qurxiya oo naftiisa iyo mujtamaca ku hareeraysanba faa'iido ah. Dhammaan asxaabta aad baan idin salaamaya waa idin jecelahay halkan idinka channelka soo gaarsiiyay insha Allah waxaan rajaynayaa in aad wax badan na sii gaarsiin doontaan videogan like garay haddii aad ka heshay waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.